jilaannimada iyo shaqadan fanka marka laga yimaado miyay jirtaa wax kale aad jeceshahay waqtiyada firaaqada aad leedahay inaad qabato walaal waxaan qabtaa meheradaan leeyahay hee marka meheradahaas baa waqti ugu badan ku qaata kuwaasaad ka shaqaysaa waa tahay sidee marka ayaad isugu wadaa fankii iyo madadaaladii oo qayb ka ah iyaduna fanka iyo ganacsigii والله أنا فهمت إني ما مسيبة أيوه مر يعني واحد عمل له فرصة وياه أما أنا مر فراق الله يهون واحد كم وقت جرم وياه مو يعني أنت بدنت ما بدني مرك رواية ضيو رواية أنا وبشر رمضان وسنة أنت سكروا له فراق ليه فراق هذا ليه أما وقت كان هستوح كبحيا ونقنعسي ganacsigaasaad ka shaqaysaa marka kaasaabad inta badan waqtiga saartaa وقت ugu badan basagaasi dhalinyar badan baa jira oo habla u badan oo runtii dee adiga kugu dayda raba halkaad maanta joogto inay gaadhaan dhanka fanka iyo dhanka ganacsigooda markaad sheegtayba aniga laftigaygu de waxaan ka mid ahay dadka sida fiican kugu xidhan maalin dhaweed aniga laftigaygaaba arkayay meherad cusubaad soo kordhisay maasha allah ka dhalinyartaa fariintaad u diraysa iyaga maxay tahay gaar ahaan hablaha walaal horta dhalinyarada Soomaalida ma salaamay ragga qofka bini'aadanka inuu ciidan wax ka sugo horta ma aha qof walba gacantiisa biyo kaga ragaabay marka maxay haday dee qof walba inuu ama gacanta hooyadii ku jiro ama gacan kale bini'aadan ku jiro waxa ka fiican inuu soo wax qabsado fisado badan oo shaqana wadankeena ka banaan yihiin qof kasta wuxuu doonayaa inuu markuu jaamacadda meeyo kursi ku soo fadhiisto marka bulshadii ku noolayd magaalada ama wadanka iyo kuraastii wadankuna isma leega xaaladii baad wada qof waliba markaas anuu imka shaqadeeda waxaan bilowdaa qof bini'aadan maanta aan oran karo qofkaas baa garab siiyay ama igu garab istaagay ama waxaas iga caawiyay ma garanayo anaa sideeda fikirkayga ugu soo dhacay anaa samaystay anaa ka maradhaliyay qof kastaana maanta maxay ahaydey qofkan hanti hayna maskax waxaya marka maskaxdiisa isticmaalo taa la shaqaysto yaan la sugi doon xafiis iyo meel qurux badan iyo boqol fursadood baa banaan aniga laftarkayga iminka waan shaqaystaa laakiin shaqadaydu laga yaabo inay tahay shaqo dadka qaar ka qashafaan dumar baan wajigooda hagaajiya madaxooda hagaajiyaan ka shaqaystaa marka waxaan leeyahay la shaqaysto shaqa sharaf la wada aad baad mahadsan tahay